sidee isku caawin kartaa marka ay kusoo wajahdo marxaladda loo yaqaan isku buuqidda amaba isla hadalka amaba dhinac kale markaan afka qalaad lagu yiraahdo stresska. dad badan oo dunida ku nool ayaa stresska la ildaran. haddaba kusoo dhawaada channelka Fartiina, aniguna magacaygu waa Firdowsi Maxamed Cabdulle. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe garee, like iyo share si barnaamij badan oo faa'iido iyo tayaba leh aad uga daawataan. haddaba dad badan oo dunida dacaladiisa kamid ah haba ugu badnaadaan dumar ayaa la daalaa dhaca stresska. sideedaba stressku ma aha wax ceeb leh amaba ma ahan wax dhaliil qof gaar ah uu leeyahay, balse waa marxalad kamid ah marxaladaha dadka aadanaha soo wajaha, taasoo keenta cadaadis fara badan oo qofka bini aadanka ku yimaada, ha uga yimaado dhinaca guurka, caafimaad darro, dhaqaale darro, dhinacyo kala badan, ama qofkii oo haysta caruur, jawi cusub qofka uu galay, magaalo uu deganaa uu ka guuray, meel kale uusan garanayn uu markaasayti degay. waxyaabo badan ayaa keeni kara stresska, balse stresska si fudud waa lagu baabi'in karaa. qofka waa isaga bixin karaa haddii uu asaga marka hore u diyaar garoobo naftiisa, ogaadana waxa haayo inuu stress yahay. haddaba waxyaabaha ugu horeeya ee aad u baahan tahay waa inaad marka hore si aadah aad u daryeeshaa naftaada. sidee haddaba ku daryeeli kartaa naftaada? waa inaad ogaataa waxa ku haya marka ugu horeysa waxa ay yihiin inuu stress yahay, isla markaana aad ku dadaashaa inaad cunno fiican cuntaa, aad sameysaa jimicsi ama sports midka aad u taqaanid. xataa haddii aad awoodi karto inaad saacad iyo bar maalintii aad soo socoto amaba bar xataa aad soo socoto, waxay kaa caawinaysaa jirkaaga inuu kala baxo hawo cusub oo nadiifan jirkaaga ay soo gasho, enerjigii culayska iyo maxaa la cadaadiska badan kugu hayeen uu kaa saaro. waxaad kaloo sameyn kartaa in aad la sheekaysato qof aad ku kalsoon tahay oo aad isleedahay qofkan waa dhageysto fiican, igu habboon in waxa gudaheega ku jira ee igubaya aan uga sheekeeyo. haddaba kumuu noqon karaa qofkaasiti. dad badan waxay ogyihiin in marxalado badan oo noloshooda kamid ah haba ugu badnaadaan dumarka in aysan jeclayn inay ka hadlaan waxyaabo ku saabsan noloshooda, walow dadka qaarkood ay kala duwan yihiin, qaarna ay si fudud ku hadlaan. waxaa soo baxda in dadku ay is yiraahdaan cariiris caafimaad darro ayaa haysata qofkii, inuu yiraahdo haddii aad heblaayo ama hebel aad uga sheekaysa in caafimaad darro ku haysato, balow oo beri lagugu sheekaystaa oo la yiraahdo heblaayo waxaa haysta caafimaad darro. dhibaato guurka ka haysatoo kale haddii uu qofka is yiraahdo problemka guurka ku haysta, haddii qof aad kugu maqasho kaletood ama dadku kugu sheekaystaan, dhaqaale daradoo kaleetood, dhibaatooyin badan qofka markuu cadaadiska noocaas oo kale uu aad isugu caburiyo, waxaa dhacda in uu gaaro heer uu qarxo. haddii uu gaaro heerkaasina waxay usii dalacaysaa qofka inuu ku dhaco loo yaqaan depression, taas oo ka marxalad aad uga sii adag stresska fudud ee dadka caadiga ah soo wajaha. haddaba raadi qof aad ku kalsoon tahay, aad isleedahay qofkan waa qof aniga wax kastoo caloosheeda ku jiro, dhib kastoo haysta amaba farxad ka ahaatee aan la wadaagi karo, aan ku aamini karo waxa aniga aan tabanayo. in qofkaas aad la fariisato, uga sheekaysto xanuunka ku hayo, dhibka ku haysto, waxa adiga jirkaaga ka buuxayo. mararka qaarkood way iska fiican tahay qofka haddii uu ooyo, waayo dad badan waxay aaminsan yihiin amaba dhaqaatiirtu aaminsan yihiin ooyintu in relief u tahay amaba maxay ahayd qofka ay siiso xasilooni gudaha ah. qofka markuu xanuunka gudihii ku jira oohin badan uu ooyo, qofkii isagoo go-anayo wixii calooshiisa ku jiray, in wixii ku jiray kasoo baxay, markaas deganaansho oo gudaha uu dareemi karo. haddii ay suurtagal tahay qof saaxiiba oo amaba walaala ama waalidku aad heli karto in aad asaga la sheekaysatid, haddii aad timaado inaad oosin aadan ka jixin oo aad tiraahdo ha socoto, let it go, waa wax iska caadi ah. waxaa kaloo sameyn kartaa sports. haddii aad tahay qof sportsku marka horeba jeclaa in aad iska soo qortid xataa gym, aad jirkaaga jimicsi badan sameysid, taas waxay ku sahlaysaa inuu kaa baxo enerjigii ku gubayo oo gudaha jirkaaga. waxaa hore loo yiri jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta dhasha. marka haddii aad dhaqdhaqaaq badan oo jirkaaga uu sameeyo, waxaa imaanaysa in jirkaaga caafimaad badan uu helo, isla markaana aad waqti u heshid wixii ku haystay inaad kasoo kabatid.
waxaa kaloo samayn kartaa socod dheer ayaad geli kartaa haddii aad fursad u heli karto ilaa iyo 40 daqiiqo maalintii way kugu filan tahay. socodkaas faraha badan waxaad qaadanaysaa neecaw macaan waxaana kaa baxaya sidoo kaleeto waxyaabihii ku gubaayay socodkaas aad socotayna maskaxdaada waxay qaadanaysaa hawo caafimaad leh waxaana baxaya wax walbo aad isleedahay wuu ku gubaaya. dhanka kaleeto marka lagu leeyahay ku dadaal nafsadaada waxaa ka mid ah inaad ku dadaashid cunadaada. stresska waxaa la ogyahay dad badan inuu u keeno daal fara badan, hilmaamsho fara badan, qofkii raba inuu maanta dhan iska jiifo amaba iska fadhiyo tv iska fiirsado, cunooyin fara badan oo aan caafimaad ahayn, waxyaabo macmacaan. dad badan waxay ku haba u badnaadaan dumarka waxay yiraahdaan waxaan stresska markuu cunaa waxyaabo badan oo macmacaan oo tiro badan taasna ay xaaladaada ay kasii darto. marka iskaba jooji waxyaabaha oo dhan oo caafimaad darro aad cunaysid. isku day inaad cunto waxyaaba caafimaad sida qudaarta oo kale, waxyaabaha dhirta oo kaleetood samee wax walba oo markaas aad isleedahay waxaad ku qaadan kartaa relief, waxaad ku qaadan kartaa deganaansho gudaha iyo mid banaanka. waxaa sidoo kaleetood dad badan ay tilmaamaan ama dhaqaatiirta ay yiraahdaan qofka haddii uu samayn karo aadi karo massage oo kaleetood in ana waxaan nahay dad muslima, haddii aad dumar tahay waxaad heli kartaa meelaha qaarkood waxaa laga helaa massage ay ka shaqeeyaan dumar kale ka shaqeeyaan. marka haddii aad nin tahayna waad heli kartaa dhinaca massage rag ka shaqeeyaan. massage-ka kaleetood jirkaaga wuxuu qaadanayaa jirkaaga wuxuu nasanayaa marka maadaama lagu daliigayo jirkaagii maadaama stresska laga qaado daal fara badan jirkaaga relief badan uu helaya. marka massage haddii aad samayn karto, haddii aad yoga samayn karto, waxyaabahaas oo dhan intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan haddii aad isleedahay stressku dhib badan ayuu kugu haya ama uu ku haya waxaad u dhawaan kartaa diinta. haddii masaajid meelaha degantahay masaajid uu ka dhow yahay waxaad noqon kartaa qof masaajidka ku xiran quraan fara badan dhageysta, aqrista, ilaahayna tala saarta. waxaa dhibayana uu maxay ahayd ilaahay uu ka saar marxaladaas uu ku jiro mid ka khayr badan